madaxweyne Daniel Arap Moi waxa uu dhashay labadii bishii Sebtembar ee sanadkii 1924 waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda digta galbeedka waddanka Kenya. waxa uu xilka madaxweyne ku-xigeenka ee dalkaasi oo qabtay sanadkii 1967 kadib dhimashadii madaxweynihii koowaad ee dalka Kenya Jomo Kenyatta. waxay Moi u ahayd guul siyaasadeed oo uu gaaray maadaama xilligaasi ay jireen siyaasiyiin kale oo ku ag hareereysnaa Kenyatta kuwaasi oo u hanqaltaagayay in ay xukunka qabtaan. sanadkii 1978 waxaa Moi loo dhaariyey xilka madaxtinimada waxaana Kenya uu maamulayay tan iyo sanadkii 2002. madaxweyne Moi waxa uu ka tirsanaa xisbigii waagaasi talada dalka hayay ee KANU oo waxa ay aad isugu dhawaayeen madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Jomo Kenyatta, arrintaasi oo u sahashay in uu saameyn ballaaran ku yeesho maamulkii xilligaasi jiray ee uu ka tirsanaa. maalmihii ugu horreeyey ee xukunkiisa waxa uu shacabka dalka Kenya ugu baaqi jiray in ay gacan ka siiyaan sidii uu u dhisi lahaa dalka. waxa uu caan ku ahaa halku-dhegii caan baxay ee Nyayo oo uu mar walba doonayay in dalka lagu sii maamulo siyaasadihii Jomo Kenyatta oo ah aabbaha dhalay madaxweynaha iminka talada dalka haya ee Kenya Uhuru Kenyatta. Daniel Arap Moi waxaa xilligaasi uu taageero badan ka haystay shacabka, waxaana la sheegaa in uu wax badan ka qabtay dhaqaalaha, waxbarashada iyo ammaanka ee dalkaasi. madaxweyne Moi xilliyadii ugu horreysay xukunkiisa waxa uu sidoo kale taageero ka haystay dalalka reer galbeedka oo waxa ay u arkayeen nin ka hortegi kara nidaamka shuuciga ee Sofiyeetka oo xilligaasi laga cabsi qabay in uu ku baaho geeska Afrika. inkastoo maamulkii Moi uu gacan bir ah ku qabtay Kenya, haddana waxaa jiray rag ka tirsanaa milatariga oo isku dayay in ay xilka ka tuuraan. saraakiil ka tirsanaa ciidamada cirka ee milatariga dalka Kenya ayaa sanadkii 1982 sameeyey iskuday afgambi oo markii dambe fashilmay kadib markii uu soo farageliyey Generaal Maxamuud oo ah nin Soomaali ah oo ka tirsanaa milatariga dalka Kenya kana soo jeeda gobolka waqooyi bari ee Kenya. tallaabadaasi la doonayay in xilka lagaga tuuro madaxweyne Moi ayaa la aaminsan yahay in ay horseeday in Moi uu la soo baxo dabeecado hor leh, sidoo kalena uu noqdo keligii taliye curyaamiyey dimuqraadiyaddii Kenya. dad badan ayaa xilliyadaasi loo taxaabay xabsiyada, waxaana xigay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, dilal lagula kacay dadka aan la dhacsanayn siyaasadihiisa iyo qabyaalada oo ku baahday dalka Kenya. waxaa ereygii ahaa Nyayo oo macnihiisu uu yahay horay u socod. dad badan marka ay maqlaan ay ku xusuusan jireen wadaninimada uu isu bedelay mid dadka xusuusiya tacadiyada iyo jirdilka ay dowladda Moi kula kacday dadkii uu markaasi u arkayay in ay mixnad ku noqon karaan dowladdiisa. dowladaha ugu tunka weyn caalamka ayaa xilligaasi joojiyey taageeradii ay siin jireen maamulkii madaxweyne Moi. cadaadiskii waddamadaasi ay saareen Moi ay keentay in dalka Kenya uu sanadkii 1992 ka hirgalo nidaamka xisbiyada badan. hase yeeshee xilligaasi ma aysan jirin mucaarad isku toosan oo awood leh oo mar kale doorashooyinkii dhacay sanadkii 1992 ilaa iyo 1997 waxaa ku guulaystay xisbigii madaxweyne Moi uu ka tirsanaa ee KANU. horraantii sagaashameeyadii madaxweyne Moi waxa uu cadaadis kala kulmay hay-adaha caalamka kadib markii laga deyriyey musuqmaasuqa iyo xaaladda xuquuqda aadanaha ee waddanka Kenya. xilligaasi waxaa sidoo kale aad u liicay dhaqaalaha Kenya, waxaana dhibaatooyin badan oo isbiirsaday ay markii dambe keentay in uu lumiyo taageeradii ay u hayeen dalalka reer galbeedka, arrintaasi oo horseeday in la takooro maamulkiisa. sidoo kale madaxweyne Moi waxaa aad loogu xusuusan doonaa dhowr xasuuq oo uu ka geystay Kenya intii uu xilka hayay, haba ugu badnaadeen xasuuqii ka dhacay Wajeer ee Wagala, Garissa iyo Malkamari oo ka dhacay Mandera. dowladdii Moi waxa ay xilligaasi ku raad joogtay dadkii aaminsanaa in deegaanadii la isku oran jiray NFD ay ka mid noqdeen Soomaaliya, waxaana dadkaasi uu Moi ku tilmaami jiray in ay yihiin kuwo burcad ah. ciidamada Kenya ayaa dad lagu qiyaasay 3,000 oo ruux ku laayay tuulada Wagala ee Wajeer. walow xasuuqii Wagala uu noqday mid uur ku taallo ah oo xanuun badan ku reebay dad badan oo Soomaali ah, ayaa haddana weli waxaa muuqata in tacadiyadii dhacay xilligii taliska Moi aanan waxba laga qaban. warbixin ay sanadkii 2013 ay soo saareen guddiga cadaaladda iyo dib u heshiisiinta TGRC ayaa waxaa lagu sheegay in dowladdu ay u cadaalad fasho magdhowna ay siiso dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dowladdii madaxweyne Moi, walow warbixintaasi aanan la qangelin ilaa iyo haatan. inkastoo madaxweyne Daniel Arap Moi lagu tilmaamo inuu ahaa waddani keligii talis ah, Afrikaanimadana ay ku weyn tahay, dad badan oo reer Kenya ah waxa ay ku xusuusan doonaan xumaan iyo wanaag si gaar ah uu u sameeyey
haddaba afgembigii dhicisoobay ee madaxweyne Moi ee dalka Kenya ka dhacay kaalin intee leeg ayuu ku lahaa Generaal Maxamuud Maxamed Barrow waxa uu ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee la soo shaqeeyay gumeystihii Ingiriiska sanadkii 1953 markii dowladda Kenya ay xornimada qaadatayna waxa uu ka mid noqday madaxda ciidamada ee dalkaasi sanadkii 1982 ciidamada cirka ee militariga dalka Kenya ayaa sameeyay isku day afgembi oo markii dambe fashilmay Generaal Maxamed Barrow oo ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada lugta ee dalka Kenya ayaa sabab u noqday in madaxweyne Moi uu dalka Kenya maamulo muddo 24 sanadood ah uuna ka badbaado qayb ahaan isku day afgembi oo ay dhici kartay in ay noloshiisa galaafato markii uu afgembiga dhacay madaxweyne Moi waxa uu ku sugnaa beer uu ku lahaa deegaanka Kabarnet oo uu Moi ka soo jeedo Generaal Maxamuud ayaa markiiba waxa uu ugu tagay beertii uu ku sugnaa madaxweyne Moi waxa uuna ka dalbaday in uu u fasaxo sidii uu uga hortagi lahaa afgembiga Generaal Maxamed Barrow oo wata askar lagu qiyaasay ilaa iyo 40 ayaa cagta mariyay askartii isku dayeysay afgembiga waxa uu mar kale xukunka ku soo celiyay madaxweyne Moi wixii markaa ka dambeeyay Generaal Maxamed Barrow waxa madax looga dhigay ciidanka cirka si uu dib u habeen ugu sameeyo waxa uu madax ka ahaa muddo 4 sanadood ah Generaal Maxamed Barrow waxa uu idaacadda qaranka ku amray in wariyihii joogay uu dadka u sheego in afgembigii uu fashilmay waxaana sidaas mar kale xukunka dib ula wareegay madaxweyne Moi xilligaasi waxaa taliyaha ciidamada ee dalka Kenya ahaa generaal lagu magacaabi jiray Mulinge balse markii uu afgembiga fashilmay waxa uu madaxweyne Moi uu xilka taliyaha ciidamada sanadkii 1986 u magacaabay Generaal Maxamed Barrow oo hayay ilaa iyo tan iyo sanadkii 1996 wixii intaa ka dambeeyay Generaal Maxamuud waxaa lagu tilmaami jiray inuu ahaa ninkii ugu dhawaa madaxweyne Moi ee uu aad ugu kalsoonaa Generaal Maxamed Barrow hadda waa howlgab waxa uu ku nool yahay magaalada Garissa ee dalka Kenya Kairos Jiringo oo ah xildhibaan hore aadna ula shaqeeyay xisbiga madaxweyne Moi ee KANU ayaa sheegay in Generaal Maxamuud uu ka mid yahay dadka farakutiriska ah ee badbaadiyay Kenya sababna uu u yahay meesha ay Kenya maanta joogto wuxuu sheegay in markii uu afgembiga dhacayay Generaal Maxamuud uu ku sugnaa magaalada Nakuru balse saacado gudahood uu idaacadda qaranka kala wareegay ciidankii afgembiga sameeyay ayuu Generaal Maxamuud waxa uu soo kaxeeyay madaxweyne Moi oo uu hor keenay idaacadda qaranka wuxuuna la hadashiyay shacabka wuxuuna u xaqiijiyay in madaxweynaha uu dhool yahay dalkana uu ka taliyo ciidankana ay isaga ka amar qaataan siyaasigan ayaa sidoo kale sheegay in qofka Soomaaliga uu maanta ka fursad wanaagsan yahay wixii ka horeeyay afgembiga suurtagalna ay tahay in qof Soomaali ah uu madaxweyne ka noqdo dalka Kenya maadaama sumcad wanaagsan loo hayo Soomaalida Kenya arrintaasina uu sabab u yahay Generaal Maxamuud waxa uu bedelay fikirkii qaldanaa ee laga haystay Soomaalida waxa uu sare u qaaday kalsoonida lagu qabo Soomaalida waxayna taasi keentay in si dhab ah loo aqoonsado jiritaanka dadka Soomaalida ee Kenya shaqooyin badan ayaa siiyay hay'adaha dawladda oo aan markii hore loo ogoleen ayaa madax looga dhigay wax badanna waa loo qabtay Soomaalida Kenya oo ay ka mid tahay dhinaca waxbarashada Generaal Maxamuud waa geesi badbaadiyay dalka Kenya oo dhan weligiina la xusuusan doono ayuu hadalkiisa sii raaciyay